بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka cudur daaranaynaa oo raali gelin aan ka bixinaynaa waqtiga dib u dhacay awadeed marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa dhammaantiinba aan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijkan aqoonta iyo cilmiga ku dhisan kuna soo dhawaada barnaamijkan oo ah macnaha daahfurka buugaagta manhajka waxbarashada Soomaaliya oo buugtii dugsiga hoose oo dib u habeeyay dibna isugu dabariday Cabdulfataax marka waxaan rajaynaynaa wada taqaanaan qoraaga marka anigoo waqtiga ku sii dheeraanaynin dhammaantiin soo dhawaada mar kale waxaan ku bilaabanaynaa sida bulshada Soomaaliyeed ee islaamka ah bay runtii ay u ahayd oo dhaqanka wanaagsan aayaadka quraanka kariimka ah oo noogu furfuri doona haddii Allah wada ogolaado Cabdicasiis Axmed استاذ سلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الله عزيز آيات القرآن كدمانتين الله نوانفعه أدينا أجر يحسن الله كاسي مركلة وحاربا إن عندي من وقعليه برنامج كان أغاك عرفتان برنامج كان حسوقا من قابل سيدا عرفتان ربط برشاد أفك الصومالية أفك هويو ورنتي أفكنا هوي هذا كان ما أنت هكذا نشوفنا ومهم تاين برشاد الصومالية رنتي أذو برارجي وحالك نرجوها رنتي أنا وأكو بالله أستاذ الشيخ عبد الوهاب عثمان sidoo kale waxaan la joogtaa sanatarad ka tirsan sanatarada hadda golaha ku jiro baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya waan waliba ay noo tahay sharaf iyo karaamo runtii inaanu anagoo ka hadlayno waxbarashadii manhajkii Soomaaliya haddana ay xubnaha ka socda dawladda ay halkan nala joogaan waxaan la joogaa Sheekh Cadaani oo ka socda bahda waxbarashada iyo runtii Xaaji Cabdirasaaq Cabdi Ali Sooyaan oo isna ka socda Nobel Academy bahdi waxbarashada iyadana ay mudnayd waliba maanta inay ku soo beemaan nalana joogaan inaanu halkan kaga hadalnaa afka Soomaaliga soo dhawaada mar kale barnaamijkan waxaan ku furfuranaynaa soo dhaweynayaa Cabdulfataax Faray oo barnaamijkan runtii si hufan uga hadli doono waxyaalihii ku kalifay inuu buugtan dib u daabaco dib u qoro heerarkii uu la soo maray iyo runtii ujeedada ku kaliftay inuu buugtan dib u daabaco buugtan waa dugsigii hoose buugaagta dugsiga hoose Soomaaliya lagu dhijigi jiray barisamaad anaga dadka nasiibku yeelan baan ka mid nahay kulay dad badan oo khiyaaro waaweyn oo nasiib u yeeshay halkan jooga marka dadka oo baa fahmi karaya waxaan soo gaarnay iyadoo sheeko una inagu soo gaarto heesihii buugaas fasalka labaad ku jirtay alla dheeriya oo dhuxusha ka madoobiya abahay baan arka yani heeso noocaas oo kala buugay ku taala mar raba inaan ninka hordhaco dadka aan hore aan u maqal heesaas marka Cabdulfataax soo dhawow waxaan rajaynayaa insha Allah inaan waqtigan aan ilaalino haddii Allah wada ogolaado سؤالات جردونا هذا سيدي وقتي ونوغو سامحان بانو runtii aan u gareynaa soo dhaw Cabdulfataax waxaan idinku salaamay salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad baan waxaan idinka mahad celinayaa dadkiina ka noo soo huray waqtiga qaaliga ah si ay qayb uga noqdaan ahmiyadda iyo hadafka aanu leenahay inaan qayb uga noqdaan insha Allah waxaan anigu soo taagay hadda lagu yeeray inaan furo barnaamijka si uu u bilowdo laakiin aniga hadalkayga dib baan dhiganayaa marka insha Allah waqtiga la gaaro oo dadka wixii hadlaya oo hadli kara oo ka hadlaya ahmiyadda iyo hadafka aynu leenahay iyo ujeedada aynu meeshan u nimi ay dhamaystirtaan ayaan insha Allah waxaan gunaanadayaa barnaamijka markaasaana hadalkayga iyo wixii aan ka oran lahaa oranaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana inoo furan yahay barnaamijkeena aan ugu hore ugu galeynaa iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdulwahab Ismaan Sheekh soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdulwahab Usmaan ayaa la yiraahdaa koofi badan yaan iska gashtaa wadaadna waa ahay wasiirka tacliintana mar aan wajeer u ahaa county government 20 sano wajeer high school aan macalinka ahaa dugsiga hoose dhexe Cali Xuseen ee wadajir xaafadda wadajir aan ka soo baxay number 4 dugsiga ku yaala
ee la yidhaahdo Mogadishu Polytechnic 1986 ka baxay jaamacadda Uganda dhameeyey 1999 Egerton University-na wax baan ka dhigtay wasaaradda tacliinta ayaan jooga Nairobi meeshan ayaan jooga intaas waa tacriifkayga yar iyo runtii si gaar inaan ugu faraxsanahay luqadan aan wax ku soo bartay markii aan yaraa weliba ilaa standard 8 yay ahayd annaga Polytechnic markaan tegay waan xasuustaa annaga iyo af Soomaali wax nagula soo baraa markiiba la yiri wixii waxba kama jiraan marka what is chemistry yani waa xasuustaa macallinkii u horeeyay noo soo galay what is chemistry yu sabuurada ku qoray Ingiriisi ku qoray laakiin waan rabno xogaa niyadan u hayno dad maskaxda laga dhaqaan ahayn xogaa waxaan aaminsanayn Soomaaliga inaan loo baahnayno maadaama English wax nagula baraayo inay fiicnayd ala kulli xaal aad baan mahad ugu celinayaa xafladan dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galay luqadda sideedaba waa dhaxal runtii ummadda ay iska leedahay dadka halkan fadhiyana waa educationist dad macallimiina dad iskuulo ma aragtay jooga ma dhamta iyadana mahad gaar ayaan u celinayaa sanataha ee Soomaaliya ka imaatay inay nala joogtana way fiican tahay kulley waxay ka mid tahay shirarka loo baahan yahay noocyadan oo kale in la qabto Cabdi Fataax ba mahad gaar ayaan runtii u celinayaa inuu isku dayayo inuu soo nooleeyo dhaxalka dhintay ee ummadan ay leedahay dadka educationistaha ah ama dadka research-ka sameeya oo baxsiga sameeya runtii adduunyada oo dhan waxay isku waafaqeen luqadda hooyo ama afka hooyo inay qofka caqligiisa ay horumariso inay qofka fikirkiisa ay dhisto oo luqadda hooyo ay ka duwan tahay luqadaha kale dhanka muhiimadda markii la fiiriyo talabaad waxay yiraahdeen luqadda hooyo waxay qofka ku xiraysaa dadkii qaraabadiisa ah awoowayaashii inuu la hadlo dadkii kale oo maartay la dhashay qaraabadii inuu maartay la communicate gareyn karo oo uu la hadli karo luqadda sideedana waa runtii stoorka weyn oo dhaqanka lagu xifdiyo ummad dhaqankeeda waxaa lagu xifdiyaa luqadeeda lagu xifdiyaa meesha wax kasta oo annaga dhaqan oon leenahay ama geel ku saabsan ama maahmaah ku saabsan ama hataa taariikhdeena markii la yiraahdo waxa lagu xifdiyaa taariikhdeena waa afkeena way مثلا tusaale ahaan markaan bixino buugtii uu qoray Ingiriiska uu qoray markii uu ka sheekeynayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan buugtaas waxay sheegayaan Sayid ma dhahayaan maad muulay leeyahay wadaadkii waalna meel dhahaysana waa jirtaa inuu terrorist iska ahana meel dhahaysana waa jirtaa saasoo kale hataa maamaaw markii laga sheekeynayo taariikhda maamaaw wadadkii u soo halgamay xorriyadda wadankan Kenya waa buugta Ingiriiska uu qoro dhan waxa ku qoran maamaaw inay terrorist ahaayeen waana dadkii beerahooda la qaatay kukuyada ahaa oo runtii dagaal u galay sidii wadankooda iyo beerahooda ku soo dhacsan lahaayeen markii luqad kale lagu qoro taariikhdaada waxaa lagu sameeynayaa inxiraaf waa la bedelayaa iyadii oo dhan taariikh beena ayaa laga qorayaa sida aawadeed horta taariikhdu runtii waxay store u tahay ama luqadda aan iraahdo waxay store u tahay taariikhdeena dhaqankeena mahmaahdeena waxyaabahaas oo dhan oo runtii aad iyo aad annaga noo anfacay tan kale waxaa la ogaaday ilmaha yar markii uu wax ku barto luqadda hooyaha horta wax lagu baraa markii luqadda labaad oo ama English ama Kiswahili aad rabto inaad wax ku barto waa inay jirtaa luqad gambar noqoto oo luqadan cusub oo hadda imaatay ay ku sii fariisato ayaa loo baahan yahay haddii aad laakiin dhahdo ilmaha yarka ah xoog ayaan maskaxdiisa ku gelinayaa cilmigan aad tiraahdo arrintaa dhibay keenaysaa canugana dhibay runtii iyay u keenaysaa marka waxaa fiican cilmigu kursi uu ku fariisto u baahan yahay kursiga uu ku fariisanayo inay luqadda hooyo ay ahaato luqad kale markay imaatana oo maskaxdaada ay imaato inay marti u noqoto luqadaadii hooyo oo horey u jirtay taas ayaa runtii ilmaha u wanaagsan waxaadna ogaataa tusaale ahaan ilmaha wax ku bartay afkooda wax ku bartay waxaa ka mid ah ilmaha Tanzania ka soo qaad waxay wax ku bartaan Swahiliga Tanzania markaan joognay jaamacadda Uganda aan joognay English ma yaqaaneen Swahili ay ku hadlaan hatta baarlamaankooda Swahili looga hadlaa
laakiin markii la yiraahdo biology iyo chemistry iyo physics iyo xisaab Tanzaniyaanka number 1 ay galayaan number 1 ay galayaan somakas maxaana yeelaya luqadooda ku soo bartay meesha annaga caruurta ka imaatay Northeastern ka imaatay Wajeer iyo Garissa ka imaaday Ingiriiskii wixii way yaqaaniin laakiin xisaab iyo physics iyo chemistry caruurta waa ka cararaan 20 sano aan secondary meesha ka dhigayo waa garanaya ilmuhu Soomaalida hor dhulka jooga ma jecla science-ka ma jecla xisaabtana ma jecla daalama kuwii Muqdisho joogay ilaa aniga Muqdisho aan ku soo korey aad waxaan anaga u jeclayn xoog saari jirnay hatta primary-ga markaan ku jirnay science iyo xisaab wixii adaga kuwana waxay leeyihiin aad bay u adag tahay marka lama akhrisan karo kulay waxa laga yaabaa luqadii marka inay tahay way dhici karaysaa ka waran haddaan ku iraahdo aljabra haddaan ku iraahdo iyo haddii aan ku iraahdo jajab haddaan ku dhaho labada kee wax fahmaysa jajab haddii ku dhaho wax la jijabiyo adiga maskaxdaada way sawaran kartaa wax la jijabiyo siday u ogyihiin laakiin markaan aljabra hada kugu bilaabo يعني وقت ويقادنيسا inaan ku fahamsiyo aljabradaas iyo macnaheeda marka luqadda runtii anigoon ku dheeraanayn muhiimadaas gaarka ayay leedahay qofkana runtii jiritaankiisa luqadaas ay ku xiran tahay Chinese oo aragteen luqadooda ay wax ku bartaan Turkiga inay luqad kale ku hadlaan ma ogola maxaan ku yiraahdaa Ruushka luqadooda ay wax ku barteen ummadahaas oo dhan luqadooda ay wax ku bartaan laakiin Afrikaankii la gumaystay oo Ingiriiska uu gumaystay ama reer Yurub ay gumaysteen haddii aad afki hooyo ku hadasho waxa la dhahayaa vernacular ku hadlay waaba lagu caynaaba vernacular uu ku hadlay laakiin nin Chinese oo afkiisa ku hadlay hadii la arko lama yaabay nin Spanish oo Spanish ku hadlay hadii la arko waa la amaanaya nin hadii Faransiis iyo Faransiis ku hadlana waa la amaanaya laakiin adi hadii aad afka hooyo adag ku hadlaa lagu arko waxa leeyahay kan vernacular ku hadlay taas naftirkeeda runtii nooc isticmaalka kamid ah ayay tahay marka waxaan leeyahay وهذا الكي كسو جبينايا عالم كودن iyo Kenya waliba hadda markay u dambaysa Kenya waxay qaadatay siyaasad ilmaha galaaska saddexaad ilaa laga gaarayo in afka hooyo wax lagu baro macallinku hadii uu caruurta xisaab barayo medium of instruction inay noqoto afka hooyo inay noqoto haduu science barayo inuu afka hooyo ku baro hadii laakiin Soomaalida Northeastern joogta dib ka jira wuxuu yahay Soomaali macallimiin hadda way iska yaryihiin aad bay u yaryihiin marka ninka adiga macallinka ku aba haduu mukaanba yahay ama ku kuyeeyahay ma dhigi karaysaa Soomaali ugu barbaad leedahay macallin ma haysatid marka siyaasadii way qoran tahay oo buugta dawladda waa ku qoran tahay laakiin hal la hirgeliyo markii la yiraahdo hirgelintii way adkaanaysaa sababtoo macallimiintii Soomaalida aad ee hirgelin lahayd aad iyo runtii u yaryihiin isliina waxaan u maayna waa sidaas oo kale iyadana kama duwana nimankan private ka meesha ku haysta macallimiintiina waxay u badan yihiin oo maayna ragana aan naqaano ragaasna hadda rag maanta af Soomaali ee la dhahayo maaha laakiin meetingkan muhiimadiisa waxa kamid ah fikirkayna aan bedelno attitude-ka aan bedelno waxaan aan leenahay Soomaali naga daaya hal duugo oo kale aan ku dhawaanay anaga yaana isduugin dhaqankeena yaana burburinin diinteena afkan ay ku dhisan tahay Soomaalidu halkan waa deganaan jirtay 60kii 50kii 40kii Soomaalida way deganaan dhulkan aw Soomaalida xageeda dhaqan waxay dhaxgaleen kuwan iska dhaxgaleen anu waxaan aaminsanahay hadda waxa inta nagu haayo diinta laakiin luqadda ma waxaan la dhigan jiray jaamacadda aniga aan garanayo Uganda wiil ku dhashay Uganda oo dadkan madmadow bagaandada dhexdooda ku dhashay waana nin Soomaali wajigiisu waa Soomaali kulli waa Soomaali laakiin anaga groupkayna nooma iman jirin hatta ninkaas ururka ardayda Soomaalida kamid ma hayn anagoo ka imaanay maaragtay NFD ka imaanay Ethiopia hal urur aan sameeysanay oo leenahay ururkan waxa lagu dhisay ethnicity wax la yiraahdo qowmiyad ku dhisanay waana jaamacaddana waa ogolaatay laakiin asaga nagu soo biiray intaasna maxay yeelay nabad miya hatta kuma dhigi karo luqadii waa maxaa marka markii luqadda dadkiina aad garan weyso maxaa sameynay adan ku weydiin taas ka dhumaysa waa tagaysa marka dadka waxaan leenahay culimada iyo akhyaarta iyo waxgaradka iyo ragga halkan fadhiyo aqoonyahanka dib aan ugu soo noqono Abdi Fataax waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo luqadeena waxay ka tarjumaysaa jiritaankeena ee ka tarjumaysaa dhaqamadan hadda aan ku faanfaanayno dhaqamo waxa jira ay Soomaalidu ku faanaan waana dhaqan dhinacna inuu negative ka yahay laga yaabo laakiin positive waa isla qabweyn kanu isla qabweyn yahay inta laga keenay ma taqaana dhaqanka laga keenay Soomaa dhaqanku ka imaan laakiin midka Bungoma ku dhashay oo halkaas waligii ku koray oo yaraantiisa ka inuu isla qabweyn yahay hadda ma kula tahay isla ma qabweyn
waa mid iska miskiin oo dadka meesha jooga uun dhaqankooda iska qaata waay laakiin midka baadiyahan ka imaada isagoo baadiye ka imaada uu leeyahay waxaan waa maaragtay kuwan dhan waa gaala dadkan oo dhan uu yasaaya uu leeyahay waxaanu dad ma aha ku ingiriis wax cad hadduu arkay wuxuu leeyahay waxaan dabada cad naga daa warkiisa ku kaloo hindiya hadduu arkay wuxuu leeyahay war kan wuxuu yahay ma jirto aniga yaraanteydii bulshadaasaan kusoo dhex koray waa xasuusta yacni waa isla weyneen waxaan dhehi jiray annaga ciyaal banaadiraan la dhaha ciyaal gobolna waa ka sarreeyey aad baana isula qab weyneen carabtana waxaan u arkaynay maaragtay daanax daanax inay yihiin oo dad la yasa ay yihiin hindigana dad macnalel uma arkayn ingiriiskana nin oday ahoo soomaali ahoo mar gaalkan ingiriiska la hadal la yidhi hadalbu wuxuu ka bilaabay waryaa doofar iska warran uu yidhi hadalka intuu ka bilaabay meeshaasuu ka bilaabay intee ka imaatay isla qabweyninkaas ma taqaan dhaqankii baa keenay waxaa kaloo dadkan ay isweydiiyaan social lifekan soomaalida ay leeyihiin hataa madowgan waa isweydiyaan oo becsharada iyo businesskan ku saabsan iyo iskaalmeyna ayagoon iskuul tegin intee dhaqankuu ku imaada waa dhaqankooda waa noloshooda been miya waa dhaqan waay waxaas ma iskama imaan baalama ninka turkana haddaad magaaladan keento waa inaad horta 6 bilood iskuul geyso markaas kadib baa kiyos loo dhiibi karaa oo la dhihi karaa kiyoskana lagu dhiibaya inta ka horeysa meel looma dhiibi karaa kan geela ka imaaday bil hadduu inta joogo meel baa loo dhiibi karaa maxaa keena karti keliya ma dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ability waay ay dhahaan laakiin ability keliya ma dhaqanka iyo luqadda iyo ummadnimadu qayb weyn bay ka tahay arrinta ayada warka waa ku dheeraaday raalli ahaada anigu siduu ninkaas sheegay wadaadu markii hadal la yidhaha waa wacdinayaa yaanan ku dheeraanin waxaan leenahay dowladda Kenya siyaas ahaan waa ogoshahay luqadan inaan iskuulada barno annaga marka inaan sidaan istaraatiijiye inaan la imaano waay qaabkii arrintan aan ku hergelin lahayn waa inaan qaabkeeda la imaano waay laakiin haddaad iskuulka iska dhex fadhiyo aad tiraahdo anigu onjaroge aan ka sugayaa inuu ilmaha af soomaaliga onjaroge ilmahaaga af soomaaliga kuma baraay walaa dhaqankaagana ma baraay isagu siyaasaddii waa qoray ilmahaaga dhaqanka baru ku yidhi kukuyo waa bilaabeen inay dhaqankooda hadda inay galaaska saddexaad afkooda ilmaha ku baraan dadka hor boodaya ilmaha afkooda waxaa lagu bara waxaa ka mid a ninkii qoraagii weynaa oo wada taqaaniin Ngugi wa Thiong'o wuxuu leeyahay waa in afka kukuyada waa in iskuulada lagu dhigaa ilaa kalaaska saddexaad hataa maahan ilaa afraad isaguna bugaag badan uu qoray hadda afkii kukuyadu ku qori haya annagana afkanagiyaan duugaynaa marka waxaan leenahay waa inaan la imaanaa istaraatiijiye iyo qaab wanaagsan oo caruurta af soomaaliga lagu baro mahmahda soomaalida iyo gabayada jiritaankooda iyo dal inay leeyihiin inay dad leeyihiin lianna waxyaabaha insaanka insaannimadiisa lagu garto oo xayawaanku uu uga duwan yahay waxaa ka mid ah maskaxda iyo luqad insaanku iskula xiriiro laba dameeroo isla hadlaysa ma arkaysid laakiin insaanku waa isla hadla xayawaanku laakiin islama hadlo walidaalika walaalayaal waxaan leenahay luqadan aan kor u qaadno sidii aan kor ugu qaadi lahaydna istaraatiijiyadeeda iyo waxeeda aan la imaano annagaa education providers educationka annagaa hagaajina annagaa samayna iskuullada annagaa iskale buugtiina waa kuwan macallimiintii aan train garayno si ay luqadii dadka ay u baraan waa isku dayayna anigii cabdifataax ilaahay khayr ha siiyo inaan Gaarese iyo Mandera ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa Wajeer haddii ay noo suurtagelayso ilaahay noo masaamaxo dhoolkaas oo dhan marka inaan ugu yeerno inay luqadooda dadkaasu ay bartaan oo ay akhristaan oo marka ay ka faa'iideystaan mustaqbalka si tacliintooda ay u tooso intaasaan ku gabagabaynayaa وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم